qorshay noloshiyo dhismaha cashuurta lala baxaa wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeena taxanaha ahaa ee cashuurta iyo cashuur bixiyaha ku soo dhawaada xalqadeeni shanaad noocyada cashuuraha gudaha ama bariga ee Soomaaliland haddaba hadii aynu noocyada cashuuraha mid isu dul taagno si aynu aqoon ugu yeeshaan cashuurta ku waajibtay cashuur bixiyayaashu iyo waajibaadka dheeraadka ee ay nafarayaan xeerarku waa sidan cashuurta macaashka shaqaalaha cashuurta mushaharka shaqaalaha waa cashuurta ku waajibtay dakhliga shaqaaluhu ka helaan shaqo ay qabteen waxa xeerku waajibinaya inuu ka reebo loo shaqeeyuhu isla markaasna uu ku soo bixiyo xafiiska ugu dhow ee cashuuraha bariga ugu dambeyn 15 cisho ee bishii xigtay cashuurtu waajibtay xaddiga cashuurta macaashka shaqaaluhu waa 5% oo lagu daray 1% oo ah cashuurta moorka ah cashuurta iibka ee adeegyada iyo alaabooyinka GST cashuurta iibka ee ku waajibtay adeega iyo alaabooyinka waa 5% kaliya cashuurtani waxa ay ku dhacdaa badeecadaha la soo dejiyo iyo kuwa gudaha dalka lagu farsameeyay iyo qaar kamid ah adeegyada lagu bixiyo gudaha wadanka sida adeega isgaarsiinta korontada biyaha tigidhada gaadiidka hoteelada iyo adeegyada kale ee cashuurtu ku waajibtay waxaana ka masuula cidda adeega ama alaabta iibinaysa oo ku daraya 5% qaansheegta qiimaha badeecada ama adeega cashuurta hadan la bixin sidee